السلام عليكم maanta waxaan insha Allah rabnaa inaan ka hadalno endocrine system. Endocrine system ayaan insha Allah saa u bilaabnay ay noqon doontaa waana dhamaystirno doonaa insha Allah. Markaan ka hadlayno jirkeena laba system ayaa jiro oo control jirkeena. Labada system waa endocrine system iyo nervous system. Waa labada system ee jirka ku sameeya regulation ama control ku sameeya waay marka. So maanta waxaan ka hadlaynaa kaliya waa endocrine system halka nervous system course kale insha Allah waxaa hadli doonaa. Haddaba what is endocrine gland? Waa maxay endocrine gland? Endocrine gland waxaa la yiraahdaa waa gland sameeyo maxaa la yiraahdaa hormones, then hormones kaasna ku soo daaya dhiigga waxaa dhihi doonaa waa endocrine gland. Endocrine gland maxaa waa glands which synthesize classical hormones and then release into the blood ayaan dhihi doonaa. This sawirkan aad u jeedin wuxuu noogu tarjumi doonaa major endocrine gland. Major endocrine glands ayuu ka tarjumi doonaa. Inta sawirkan u gelin koor waxaan rabnaa inaan kala soocno laba shay inta badan lagu wareego. Waxaa jira wax la yiraahdo waxa lagu wareeraa inta badan endocrine gland, endocrine iyo exocrine. Labadan inta badan waxa u maleysaa in lagu wareero. So waxaan rabnaa inaan kala saarno endocrine. Haddaa maqashin endocrine gland waa glands kuwaasoo maxaa la yiraahdaa soo deeyo hormones dhiiggana toos ugu daro. Waa qeexitaanka sida aan aragnay. Laakiin exocrine gland endocrine way ka duwan yihiin. Exocrine gland waxa waa glands oo leh ducts tubooyin ay leeyihiin. Markii ay soo sameeyaan maxaa la yiraahdaa wuxuuda waxay ku soo deey doonaan ductskaas ay ku soo deey doonaan. So waxaa dhahayna exocrine gland waxa waa ductless duct gland. Duct gland waa gland leh ducts ay leeyihiin. Kuwana waa ductless gland. Ductless gland waa marka. Marka waa inaan kala fahmi karnaa waa maxay exocrine gland waa maxay endocrine gland. Endocrine gland wuxuuda markay suubiyaan hormoneska dhiigga si toos dhiigga ay u shubi doonaan. Kuwan waxa waaye ducts tubooyin ay marsii doonaan sida waxa kamid ah salivary gland iyo kale, sweat gland iyo kale. Waxyaalahaas ayaa kamid ah. Labadaas hadda saas ugu soo gudubno. This is the major endocrine glands armina ka hadalno. Waa qanjirada ugu waaweyn ee jirka ay soo daaya inta badan hormoneska. Waxaa ka hadli doonaa kow waxa la yiraahdo pituitary gland. Pituitary gland waa qanjirada ugu waaweyn ee soo daayo hormoneska ayuu ku jiraa. So pituitary glandiga haddaa fiirino waxaa jiro waxa la yiraahdo this is the hypothalamus. This is the hypothalamus. This is the pituitary gland. This is the pituitary gland. Pituitary gland marka waxay leedahay ayada qayb la yiraahdo anterior pituitary gland. This is the anterior pituitary gland. This is the anterior pituitary gland. Laakiin this is the posterior pituitary gland. Waxay leedahay ayada qayb hore iyo qayb dambe macnaha. Posterior pituitary gland. Qaybtan waa anterior, qaybtan waa posterior. This is maxaa waa hypothalamus. Hypothalamus ay ka hooseysaa. So qaybtan la yiraahdo anterior pituitary gland marka waxay soo deysaa ayada 6 hormoon ayaa laga soo daayaa. In pituitary marka joogno waxaan dhahnaa waxa kala qaybinaynaa anterior pituitary gland iyo posterior pituitary gland. Anterior pituitary gland waxay soo deysaa 6 hormoon ay soo deysaa. 6daas hormoon maxay kala yihiin? Haddaan soo koobno 6daas hormoon waxay kala yihiin kow waxa ugu horeeya prolactin, waxaa ku xig waxa la yiraahdo FSH, waxaa ku xig waxa la yiraahdo LH, waxaa ku xig waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa growth hormone, waxaa kaloo ay soo deysaa waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa TSH shan soma. Sidoo kale waxay soo deysaa prolactin waxa la yiraahdo. Prolactin ay soo deysaa kow. FSH waxaa laga soo gaabiyay waxa la yiraahdo follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone. LH tan waxaa laga soo gaabiyay luteinizing hormone. Luteinizing hormone ayaa ka soo gaabanay. GH kan waxaa ka soo gaabanay growth hormone. Growth hormone ayaa ka soo gaabanay. TSH kan waxaa ka soo gaabanay thyroid stimulating hormone. Sidoo kale kan lixaad wuxuu noqon doonaa marka ACTH
adrenocortical tropic hormone. Okay, adrenocortical tropic hormone ay soo deysaa. Okay, marka waxaan dhahaynaa lixdan hormoon aan hadda sheegnay: prolactin, FSH, LH, growth hormone, TSH iyo ACTH waxaa laga soo daayaa anterior pituitary gland. Okay, waa fahanaa laas. Posterior maxaa laga soo daayaa marka? Posterior waxaa laga soo daayaa labo hormoon ayaa laga soo daayaa. labadaasna waxa waaye waxa la yiraahdo ADH, waxa la yiraahdo ADH iyo waxa la yiraahdo iyo oxytocin. inta ku qorayna oxytocin. Okay, oxytocin iyo ADH waxa laga soo gaabiyay antidiuretic hormone ama vasopressin oo dhihi karnaa. hadaa maqashid marka vasopressin ama ADH hadaa maqashid waa same. So iyo waxa laga soo daayay oxytocin. marka waxaan dhahaynaa in pituitary marka joogno anterior waxa laga soo daayay 6 hormoon, posterior kan waxa laga soo daayay 2 hormoon. Okay, maxay qaban doonaan shaqadooda mid kasto cashir kasto insha Allah. FSH, LH, growth hormone waxa ku arki doonaa cashir gooni ah. Prolactin, ACTH insha Allah ayagoo gooni arki doonaa. laakiin hadda waxaan sameynaynaa overview ama macnaha waa soo koobnaa. Okay, xaggaas waxaa ugu tagnay pituitary gland. Okay, pituitary gland ayaa xagga ugu tagnay. awmaana marka waxaa jira waxa la yiraahdo pineal gland. Okay, pineal gland kuma jiro major endocrine gland, laakiin waxa waaye adam maxaa la yiraahdaa endocrine oo soo daaya hormoneska. intuu badan wuxuu soo daaya waxa la yiraahdo melanin. Okay, melanin waxay ka qayb qaadataa qofka inuu hurdo. Okay, qofka inuu hurdo ay ka qayb qaadataa. Okay, awmaana marka in thyroidka dawmaana thyroidka waxa la yiraahdaa waa qanjirkan inta ku yaala. thyroidka waa kana. thyroidkan waxa laga soo daayaa waxa la yiraahdaa kana waxa loo yaqaanaa thyroid gland. Okay, waa sida butterfly oo kale ama baashan balanbaalista oo kale ayuu yaala. marka balanbaalista oo kale uu yaala waxa uu dhinaca marka waa thyroid gland. Okay, thyroid gland waxa laga soo daayaa 3 shay ayaa laga soo daayaa. waxa laga soo daayaa T3 iyo T4 iyo calcitonin. Okay, calcitonin, T3, T4. Okay, thyroxine iyo maxaa la yiraahdaa iyo T4 ayaa laga soo daayaa. So thyroidka qaybtiisa gadaale, thyroidka waa anterior. So qaybtiisa gadaale waxa ku yaala waxa la yiraahdo parathyroid gland. Okay, waxa ku yaala waxa la yiraahdo parathyroid gland ayaa ku yaala. qanjirkan ayaa ku yaala. qanjirkaas marka asina wuxuu soo dayaa hormoon gooni ah. soo dayaa hormoonka oo soo dayaa waxa loo yaqaanaa marka parathyroid hormone. Okay, parathyroid hormone ayuu soo dayaa. Okay, parathyroid hormone oo ka qayb qaato calciumka maxaa la yiraahdaa control. Okay, sidoo kale inta soo jeedno waxaa jiro gland kale oo la yiraahdo thymus oo asina aad u weyn oo maxaa la soo daaya waxa la yiraahdo thymin. Okay, in hadaa maana marka this area waa pancreaska. Okay, pancreaska ayaan ka wadnaa sawirkan. pancreaska marka imaano waxa laga soo daayaa this is the pancreas. Okay, this is pancreas. pancreaska waa meel u muhiimsan. meel la yiraahdo ayaa jirto in pancreas islets of Langerhans. Okay, islets of Langerhans horta pancreaska asiga wuxuu leeyahay qayb endocrine gland ah iyo qayb exocrine gland. Okay, anaga exocrine gland kama hadlayno, waxaan ka hadlaynaa endocrine glandiga. qaybta endocrine glandiga ee islets of Langerhansiga waxa laga soo daayaa waxa la yiraahdo insulin. Very important. insulin, glucagon. Okay, glucagon, somatostatin. sidoo kale waxa laga soo daayaa waxa la yiraahdo somatostatin. halaas ayaa ugu muhiimsan, somatostatin. Okay, insulin, glucagon iyo somatostatin. Okay, somatostatin maxaa waaye? somatostatin labadan ay joojisaa inhibition insulinka iyo glucagonka ay joojisaa. Okay, glucagon goorma la soo daayaa? qofku markuu baahi hayo starvation uu jiro ayaa la soo daayaa si loo sameeyo wax la yiraahdo u tago beerka loo sameeyo glyconeogenesis. insulinkan goorma la soo daayaa? qofku markuu raashin cuno ayaga glucose qofku markuu carbohydrate cuno ayada waxay tagi doonaan cuntadii cunay waxay tagi doonaan islets of Langerhans. glucose oo cunay ayaa soo deey doon insulinka ayaa soo deeyo glucose ayaa soo deeyo glucose-ka cuntada cunta. Okay, dad qaar waxaa jira marka oo maxaa la yiraahdaa cilad ay ka jirto in maxaa la yiraahdaa insulinka in la soo daayo. so dadkaas waxay noqonayaan marka diabetes mellitus type 2 oo kale. Okay, asina waa ka hadli doonaa insha Allah pathology ahaan. hadda waxa u maaneynaa this is the kidney. labada kili
وكنا وحكر كسارن واحد يراد adrenal gland okay كليها كركود وحيال واحد يراد adrenal gland وخنجر مركا oo very important okay asiga laba marka okay this is the aan ka soo qaadnay inuu yahay adrenal gland asiga laba qayb oo maxaa la yiraahdaa kore oo cortex iyo qayb medulla la yiraahdo okay qaybta cortex-ka marka qaybta cortex-ka waxa laga soo daayaa waxa la yiraahdaa qaybta cortex-ka ayaa waxaan kala qaadaynaa saddex qaybood okay qayb la yiraahdo mineralo corticoid glucocorticoid iyo waxaan kala qaadi doonaa sex hormones okay so saddexdan shay marka okay kana idinka tirtiro saddexdan midkan mineralo corticoid waxaan dhahnay qaybta cortex-ka waxa loo qaybiyaa saddex qayb qaybta oo mineralo corticoid-ka waxa laga soo daayaa very important waxa laga soo daayaa aldosterone okay aldosterone ayaa laga soo daayaa aldosterone shaqadiisa waxa waaye retention of sodium and excretion of potassium shaqada u weyn uu qabto potassium aldosterone ko midaas okay glucocorticoid inta badan waxa laga soo daayaa wax la yiraahdo cortisol okay okay iyo glucocorticoid sex hormones kan waxa laga soo daayaa waxa kamid ah androgen oo kale okay androgen oo kale ayaa laga soo daayaa marka oo in male very important waa so waxa kale oo noo dhiman wax la yiraahdo hadda waxaan ka baxnay waxaan dhahnay pituitary gland ayaa waxaan dhahnay anterior iyo posterior ayuu leeyahay qaybta anterior waxaan dhahnay 6 laga soo daayaa hormoonka qaybta posterior kan waxaan dhahnay 2 ayaa laga soo daayaa waa ka soo gudubnay waxaan dhahnay pineal gland melanocyte ay soo daayaa waxaan dhahnay waxa uu maanay thyroid gland qanjirkan ayaa u maanay waxaan dhahnay thyroid gland-ga waa sida butterfly oo kale sa u jeedin qaabkan butterfly oo kale waa sax waa sida balanbaalista ma yiraahdaa oo kale waay soo asiga wuxuu soo daayaa wax la yiraahdo thyroxine triiodothyroxine iyo calcitonin okay ama T3 T4 iyo calcitonin ayuu soo daayaa thyroid gland-ga waxaan dhahnay gadaashiisa waxa ku yaala wax la yiraahdo dhibcahan afartan dhibca u jeedin waa parathyroid gland okay parathyroid gland waa marka wuxuu ku yaala qaybta gadaale ee thyroidka marka wuxuu soo daayaa marka parathyroidka gland-gan wuxuu soo daayaa parathyroid hormone ayuu soo daayaa okay parathyroid hormone ayuu soo daayaa okay waxaan dhahnay waxa uu maanay in kaliyaha marka joogno waxaan dhahnay qayb kore ayaa jirto kaliyaha oo loo yaqaan adrenal gland waxaan dhahnay ayada waxa kala qaadnay qayb cortex ah iyo qayb medulla ah qaybta cortex-ka waxaan dhahnay saddex kala sii qaadnay waxaan dhahnay mineralocorticoid glucocorticoid sex hormones mineralocorticoid intuu badan wuxuu soo daysaa aldosterone glucocorticoid wuxuu soo daysaa intuu badan cortisol sex hormones kan wuxuu soo daysaa androgen okay waxaan dhahnay sidoo kale waxa uu maanay pancreas-ka waxaan dhahnay pancreas-ka marka ay maanay waxaan dhahnay waxa jira meel yiraahdo Alice of Langerhans waxay soo daysaa wax la yiraahdo insulin glucagon iyo somatostatin okay waxa uu maanaynaa marka hadda this is the testis okay this is waxaan ka wadnaa this is the testis marka testis in male okay female testis mala so in male testis maxaa laga soo daayaa testosterone okay very important in male testis maxaa laga soo daayaa testosterone oh very important ah male secondary sexual characteristics iyo sidoo kale very important waa okay testosterone ayaa laga soo daayaa marka testosterone okay in ovary marka maadaama this is the male yahay this is the gonads of female this is the gonads of male this is the gonads of female this is the ovary ayaan ka wadnaa okay this is the ovary marka this is the ovary ya lagu wareerin this is the ovary okay this is the ovary so ovary maxaa laga soo daayaa oo female-ka waxaa laga soo daayaa estrogen and progesterone okay estrogen and progesterone are very important estrogen okay estrogen wuxuu very important u yahay female sexual secondary characteristics okay
waxaan aanay this is the major endocrine gland waay haddaa hal mar umaano ogsto ADH-ka shaqadiisa maxaa waay ADH-ka intuu badan ADH-ka wuxuu qabtaa water balance okay water balance jirka ayuu qofkaana markuu vomiting badan sameeyo ama dareere badan wuxuu sameynaa biyo badan ayuu jirka uu soo celiyaa okay biyaha water balance waa siga okay hadday dhacdo osmolarity jirka hadduu bato hyper osmolarity hadday dhacdo waxaa dhacaya isla markii ADH stimulation ayuu noqon doonaa stimulation markuu noqdo wuxuu tagi doonaa distal gluteal tube-ka wuxuu sameyn doonaa wuxuu soo celi doonaa the more water ayuu jirka ku soo celi doonaa si uu sameeyo balance jirka uu sameeyo marka okay haddaba maano marka anterior-ka haddaba maano prolactin wuxuu ka qayb qaataa caanaha milkiga maamada in la sameeyo prolactin ayaa ka qayb qaato sidoo kale FSH LH in female ayay ka qayb qaataan growth hormone wuxuu ka qayb qaataa cells-ka inay sameeyaan growth okay TSH kan TSH thyroid stimulating hormone waa kana maxaa la yiraahdaa wuxuu imaanaa thyroid glandiga asiga marka thyroid glandiga haddaba maano waxay ka qayb qaataan intuu badan maxaa la yiraahdaa waxay ka qayb qaataan maxaa la yiraahdaa in metabolism jirka okay metabolism of the body ay ka qayb qaataan okay that is the overview okay that is the major endocrine gland hadda waxaan umaaneynaa marka waxaa jira marka others jira marka laga soo daayo hormones okay meelo kale hormones laga soo daayo jiro yaa wacaansan waxa caansan kidney waxaa jira hormones laga soo daayo kidney maxaa kamid ah erythrobiosis macnihiisu waxa waaye waa hormone goormee la soo daayo asiga waxaa la soo daaya RBC markuu dhulka dhaco okay waxaa jirta in kidney marka fiirin waxaa jira meel la yiraahdo particular capillaries waxaa ku yaalo waxay sensitive ku yihiin marka meel waxaa jirta oo sensitive ku ah oxygen-ka okay haddii particular meeshaas marka haddii oxygen-ka biyo gaarayo hadduu yiraahdo waxaa dhacaya marka isla markii active ay noqon doonaan way soo fariina waxaa loo soo diri doonaa bone marrow waxaa la dhihi doonaa waxaa sameysaa RBC badan samee because of waxaa jira hypoxia waxaa jiro maxaa la yiraahdaa oxygen-ka ayaa yaraada so erythrobiosis wuxuu muhiim u yahay in la sameeyo RBC okay sidoo kale maxay soo deysaa prostaglandin okay prostaglandin waa iska naqaanaa prostaglandin sidoo kale waxay soo deysaa renin okay renin waa asina hormone laga soo daayo renin wuxuu muhiim u yahay compensatory mechanism aldosterone in la soo daayo ayuu very important u yahay asiga reninka so meelo kale ayaa jiro oo laga soo daayo maxaa la yiraahdaa hormones so waxaa kamid ah adipose tissue-ga leptin ay soo daayaan okay that is the marka overview of maxaa la yiraahdaa pituitary endocrine gland okay that is the pituitary maxaa la yiraahdaa overview marka waxaa sameyn doonaa insha Allah maanta halkaas aan ku ekeen doonaa waxaa jiro local hormones oo meelo kale laga soo daayo sida histamine leukotriene iyo maxaa la yiraahdaa prostaglandin oo kale xitaa meelo waxaa jiro local hormones oo meelo laga soo daayo okay so saas very important noomaha muhiimadeena waxa waaye inaa majorka aan soo ka koobno so haddaa anaga fursad u helnana insha Allah mar kale kasii hadli doonaa xalaasaa maanta kusoo gabay doonaa insha Allah tacaala isbuuca soo socdana waxaan ka hadli doonaa insha Allah hormone okay hormone aan ka hadli doonaa hormone markaan ka hadalna kadib waxaan toos u gali doonaa marka mid kasta ayaan dul istaagi doonaa anterior pituitary gland ayaan dul istaagi doonaa posterior pituitary gland ayaan dul istaagi doonaa maxaa la yiraahdaa parathyroid gland ayaan dul istaagi doonaa waxaan dul istaagi doonaa pancreaska Ehlers of Langerhans meesha la yiraahdo sidoo kale maxaa la yiraahdaa waxaan dul istaagi doonaa adrenal glandska ayaan mid kasta ayaan dul istaagi doonaa kaliya halaan waa overview waa maasantihiin haddii cashirka uu soo gaaray oo waa faa'iiday please share si dadka intuu badan maxaa la yiraahdaa u wada gaaraan waa maasantihiin thank you so much